والسلام على رسول اصطفى ثم ما بعد كلمة كوبان إن شاء الله تعالى وحين كنت المامنا سلامة الصدر سلامة الصدر وحنا ندورني حلقا ما أنت لو تشرو dadkii way iska wada laalaadaan qof waliba qof buu kala laalaada waliba waxa ugu daran dadka qaraabada ah ee isxiga oo qofku walaalkii uu oranayo 10 sano ma wada hadlin qaar kamid ah aabahood baan la hadlin qaar kamid ah hooyadood la soo hadlin qaar kamid ah ay qaraabadoodii adeerkoodii iyo abtigoodii habareerkood nacib yihiin limaada waxa weeyaan dhammaan wax isku wada haystaan waa arin adduunyo arin diineed kuma culuubin maadaama aan ka tahay waxaan jecelahay inuu kelmad kooban ka niraahno salaamad sadr laabta inaynu furno oo dadkan maxaabiista ah inoo xidhan aynu sii deyno haddaynu doonayno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka badbaadno ilaahay baa quraanka wuxuu ku waa calaamaatu ahlu janna calaamaadkiisa waxaa ka mid ah salaamu sadri ah wanazacnaa maa fii suduurihim min ghil jannada ma gelaysid ama lamaba gelayaba ilaa laabta waxa ku jira oo dhan laga safeeyo waana ogtihiin xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii ahlu janna ah ee soo maray saxaabada ee rasuulku ku yidhi in ahlu janna inuu soo gelay saddexdii jeer buu noqday nin qura ninkii markii la daba galay muxuu ku gaaray darajada jannada wuxuu ku gaaray habeenkii ma seexdo hadii qof qurahay qalbigayga wuxuu ku jiraa dabeetana waa kii saxaabigu lahaa la joogay ee saddex habeen la seexday wahada ma nutiq shayga aanan awoodi karayninba waa ka ilaa xilligaana way jirtay in qalbiga wax lagu hayo laakiin maxaynu u baahannahay qalbiga inuu furno sii deyno salaamo sadriga qisatu abu dar waa ogeydeen markii bilaal uu ku yidhi waxaa tahay inuu hooyo madow nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu u canaantay waad ogeyd cayrta umma dabeetana markii dambe muxuu yidhi intuu jiifsaday wuxuu ku yidhi iga gooso waxaa doontana igu samee waxa weeyaan si aad markaa raalli u noqoto wuxuu doonayay markaa inuu sii daayo qalbiga uu ka sii daayo bilaalna waa kii iska saamaxay inuu madaxa kaga joogsada baan u ogolaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa waa garanaysaan ahlu jannaha waxaa ugu badan rajul makhmuum saduuqu lisaan marka saduuqu lisaanka way garteen qofka runsheega badan le waanu garanay makhmuumku waa maxay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi waa qof kasta oo markaa qalbigiisa uu yahay raqiiq oo qalbi jilicsan oo dadka u naxariis badan oo furfura oo qalbigiisa waxba ku jirin yacniga dadka saamixitaan badan oo cafi badan dhammaanna waxyaabaha qalbigan baabi'iyey ama madoobeeyey ama dilay waxaa ka mid ah amraadda loo yaqaano amraadul qalbiga amraadul qalbiga waxaa ka mid ah xasadka waxaa ka mid ah xiqdiga waxaa ka mid ah markaa dhanniga iyo waxyaabaha qofku shakiga uu ku sameeyo dhammaanna waxa ina dilay maanta dadkeenii inagu wada diray mid wala mid buu ka laalaadaa wallahi salaanta kama qaada hebel wallahi marka halkaas soo maro ima eego wallahi wajigiisu ima furna waa wada shaki weey talabaad waxa weeyaan xasad baal xasad la yiraahdo oo marka aad moodo in dadkii lagu saliday waxyaabaha marka qalbiga ciriiriga ugu wacan buu kamid yahay waxa kamid ah xasadka waxyaabaha ugu badan ee maanta uu haysto waxa kamid ah inuu haysta inuu yiraahdo qofka isaga ma aragta ha wallahi waan nabcay hadda weydiiso tala maxaad ku nacabtay wuxuu ku oranayaa waan iska nabcay ka haddaad sii weydiiso wuxuu ku oranayaa wallahi jinkayga nacab waxaynu maraynaa xilli qofkii aan wax idin dhex mariba ma jiraan horta kii wax idin dhex mareen halkan noo dhig mid aan waxba idin dhex marin waxaad leedahay jinkayga nacab oo adiga ma jinka horta ku maamula mise adiga islaamnimada iyo shareecada ku maamusha maxaa kugu saliday jinkayga nacab iyo waxaan waa xasad un wey xiqdi iyo xasad baa halkan ka buuxa waxaynu u baahannahay in aynu qalbiga furno oo muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala inu cafino waxaa ka mid ah maxaabiis baa kuu xaraysan habeen walba oo midaad qaniinsan tahay midaad xasad ku haysato midaad xiqdi ku haysato midaad maalin isku yar dhacdeen weligaana sii dayn maysid maxaabiista hadda sii dayn wadaadna maxbuus baad ilahay agtiisa ku noqonaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam camalka waa la rafciya saddexdii maalmoodba khamiis waliyo siniin walba waa la rafciyaa samadaa loo rafciyaa laakiin waxaan la rafcinin waa maxay labuun baan la rafcinin mushrik iyo markaa mushaaxin qof markaa dee shirki la yimi camalkiisa dee lamaba qaadayo lama aqbalayo ka kale waa mushaaxin waa mid dadka caloosha ugu hayo qalbiga saa uga laalaada arrinkaasina waxa weeyaan dee adigun baa maxluusa adu waxaas lee dad baad haysataa oo hebel saamax baa lagu yiri war saamaxnaakum baa dadka hala saamaxo wallaahi kii waxaa nagu sameeyey saamixi mayna buuri in odayaa laga hayaa waxaa le war halaysa saamaxo wuxuu wallahi kuwii sanadkii dhaweyto carafadii dhaweyto ariga naga amaaday in reemiye buu intaas un buhayey moogta arigaas un buhayey inaanaa saamaxaynin bal ka ari baaba laga amaaday adiga maxaa laga amaaday kaasina inuu iska saamaxa weeye ka ariga laga amaaday qudhiisu inuu iska saamaxa weeye marun insha allah deynta usoo celin doonaan waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna yakfir allahu lakum ilaahay subxaanahu watacaala abubakar qisadiisii waa ogtihiin mistax ibnu thawaal markii uu weliba inantiisii caayey ilaahay baa subxaanahu watacaala ku yidhi saamax maxaad u saamaxaysaa
dee alaa tuxibuuna yakfir allahu lakum adigu maanad jeclayn lagu saamaxo adigu habeen walba waxaad leedahay ilaahu dambi dhaaf maalin walbana waxaad ka laalaadaa 10 qof baad hareeraha haysataa leedahay kaa sii dayn maayo ilaa aad adigu wax saamaxdo adigana lagu saamixi maayo waayo waxaan lagu saamaxaynin dee qalbigaagii baaba markaa cid kale ka laalaado xiqdigii xasadkii iyo wixii mushaaxinkii ila yiri camalka lama rafciyo adigaaba ahba ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu leeyahay walkaadimiina alghayda walcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin waa kuwa markaa caadhada celiya isku celiya waa kuwa dadka cafiya waa kuwa markaa dadka iska cafiya wey marka inaad dadka cafidaa adigay dantaada tahay waxaynu walaal doonaynaa inaynu kelmadan iyada uga faa'iidaysano qaraabada dadkii way dadka isugu nacabi maanta waddankeena waxa weeyaan ama muslimiinta intooda badan waa dadkii isxigay qaraabada ah waxaad arkaysaa qof habaryartii iyo haddaad maanta weydiisood ku tahay goorma kugu dambeysay inaad la hadasho ama u tagto wuxuu ku wallahi niyow ciidii carafa ay ugu dambeysay walimaada waxa laga yaabaa inuu aad col la tahay maxaad kula coltay haddaad weydiiso wuxuu ku odhanayaa oday adeeraa beri ii sheekeeyo wuxuu igu yidhi kaasi kaa adeerka ku abaaragtaa beri buu aabbaha cay aabbaha beri hore dhintay adiga kuma sheegin beri buu aabbaha hal ka qaadayoo reerkaasi wayna nabcayeen weligeynba war hashiina beri hore dhimatay aabbahaana beri hore dhintay adiga waxaan adeerkaa kaa laalaadiyey waa maxay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka doonaya in cimriga loo dheereeyo risiqana loo ballaadhiyaa riximkiisa ha xidhiidhiyo war maanta haddii lagu yidhaahdo 10 sana lagugu daraya cimrigaaga laakiin adeerka orod soo salaan maxaad yeelaysaa wallahi madax iyo mijaadka soo dhunkanaysa laakiin waa maxay arrinta ina haysataa waxa weeye war baynaanu hayninba walla risiqaa ku ballaadhanaya cimrigaa lagu dheeraynaya qaraabada aad xidhiidhiso maadaama risiqii lagugu ballaadhanayo cimriga lagugu dheeraynayo xidhiidhi adiga xudoonaa kugu sameeyo weliga colaa kula ahaado adiga maxaa kaa galay u tag salaan guriga soo fadhiiso qisadan ugu dambaysiinaya waxa weeye aan runtii jeclahay inaan kusoo ururiyaa qaar ka mida baa wuxuu tilmaameen in ay dhowr iyo 20 sannadood risqa lagu adkeeyey wuxuu yidhi waxaan baac mushtar baan ahayo wuxuu yidhi haddaan alaabo qaado way gubataa maalintii dambe baan waxaan ogaaday sheekh baan ka dhageystay buu yidhi qaraabada in la xidhiidhiyo dabeetna waxaan ogaaday buu yidhi gabadha aan qabo oo aanu ilmaadeen ruma nahay inaan u diiday reerkooda oo dhan aan weligood uma tegi karti iyana kuma iman karaan waxaan ogaaday buu yidhi anigu jeel samaystay gurigayga ka mid ah maalinta maanu imi waxaan ku idhi adigu waxaad u tegaysaa reerkiinnii wiiga soo socda khamiista soo socdana waxaynu casumaynaa walaalaha iyo baynu casumaynaa iyo reerkiinnii gabadhii farxad aawada way oyday buuri maalin dhanbe ooysay waan aamusin kari waay buuri markii dambe aniga naxoos adaa wuxuu geystay maxaa dhacay baan ku ruxaytay weligay ismaan lahayn kelmaddaas kugu odhanaya ninkaan waanu casunnay markay is arkeen 20 sano dhow baan is arag markay ay is arkeen way isku ooyeen buuri iyadiina wuxuu wiigii dambe aan israacnay guryahoodii baan soo tusay carruurteedii iyadii buu reerkii u tagtay waan soo noqday buuri muddo 3 sanadood gudahooda ayaan taajir noqday buuri wax alla waxaan qaadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala barakay buuri limaada show aniga aban war isu haynay jeel arlada korkeeda ah oo aan ummadiiba kale riximkii kale ilaaliyay aniga lafteeda riximka bay ahaayeen oo ilmaadeer baan ahay buuri marka maan isugeyn buuri waxaan doonayaa marka inaan walaal uga faa'iideysano inuu salaamatu sadr laabta inaynu xaadno oo xallo markaynu laabta xalle aynu xaadno ay inagana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina barakaynaya ubadka ilaahay inoo barakaynaya oorida ilaahay inoo barakay risq inoo ballaadhinaya qaraabadu aynu xiriir fiican u sameynayna arrinka isaga waxaan doonayaa idhaahdo waan ama jin hala colaada ama yuu la colahaanine aynu saamaxno dadkan inoo jeelka inoogu xidhan aynu sii dayno markaasaa ilaahayna jeelka ciqaabtayna sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa